madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay Cisbitalka Guud ee degmada Cerigabo waxaanu madaxweynuhu mid u soo booqday qaybahan cusub oo lagu soo kordhiyay Cisbitalka Guud ee degmada Cerigabo ugu horeynba waxa munaasabadani ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland agaasimaha guud ee Cisbitalka Guud ee gobolka Sanaag barasaabka gobolka Sanaag iyagoo dhamaantoodba ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa uu soo maray Cisbitalkani Cisbitalku dhamaantii waa la qacan mariyay marka laga reebo meel qura meeshaas markii aan dib u eegnay waxa qandaraaskana ku jirin shirkadda Najax waxaanu ka codsanaynaa iyada kulay macaashkiisa iyo hawshii qacanta ku haysay waxa weeyaan masaajidkii dhakhtarka waxba laga ma qabanin waxaanu shirkadda ka codsanaynaa in arinta masaajidka dib loogu noqdo masaajidkana waxna looga qabto inaynu dadkeedu noqonaa loo baahan yahay inaynu inagu xanaanayno loo baahan yahay inaynu inagu laga xiyaaray milyaanaba ka qaadnaa leenooga baahan yahay inaynu inagu qacanta ku haynaa leenooga baahan yahay mushkiladda wadanka taala waxa weeye sustainability wax la yiraahdo jirin wixii waa la sameeynaya waxa lagu leeyahay hay'ad yar baa guna la qaan jiray way tagaysaa intii joogtay maanta iskaga tagaysaa Cisbitalka waxa barnaamijkan maalgelinaysa waxay ahayd hay'adda SDF ama mashruuca horumarinta suuqa Soomaaliland mashruucaas oo u dhamaa taqriiban 3.4 milyan isagoo isugu jiray dhismayaal isagoo isugu jiray dawooyin qalabayn iyo sidaas la eeg gunayntii shaqaalaha waxa xusid mudan waxa weeye ma jirto maanta Cisbitalka Cerigabo meel aan la taaban oo waxa la oran karaa meeshii aan la taaban waxay noqotay meel markaas la dayactiray hadii ay biiraahdo waxaan leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin in ilaahay inuu ku simo iyadoo waxaas oo dhan maanta ay yaalaan degmadii iyo Cisbitalkii Guud ee Cerigabo Cisbitalkii Guud ee gobolka Sanaag madaxweyne waxaan ka ballan qaadayaa aniga wasiirkaaga caafimaadka wixii awoodda dawladdu ay karto waxba kala hadhi maayo cisbitalkan iyo kuwa kaleba waxa kale oo jirta oo muhiim ah in daaraha hadii sidii loo sheegay daar la dhiso oo inaanay muhiim ahayn dhismaheedii uu yahay waxa lagu qabanayo gudaheeda cisbitalku waa cisbital gobol waxa wixii meelaha kale degmooyinka lagu soo taagi waayo ama goobaha caafimaadka kale iyo halka la keeno marka waa inuu adeeg ka sareeyo kuwii hoose waa inuu yeeshaa waxaan isku daynaa hadii ilaahay nala qabto in caafimaad shaqaalaha caafimaadka in awoodooda shaqo iyo bixinta tayada caafimaad ay bixinayaan inaanu kor u qaadno Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka warmay muhiimadda uu leeyahay bulshada gobolka Sanaag Cisbitalkani isagoo baaqu dhaqaatiirta u dhaladay gobolka Sanaag iyo dhaqaatiirta Soomaaliland isla markaasina sheegay in ay ka qayb qaataan cisbitaalada gobolada Sool iyo Sanaag muruq maal cid walba ka qayb qaatayna waa uga mahadnaqaynaa waana ku bogaadinaynaa dhaqaatiirta Soomaaliland iyo gaar ahaan kuwa gobolka Sanaag ee waaya araga ah ee 20 sano Yurub iyo North America iyo Australia ka shaqeynayay ee imika ah ee caruurtoodina ka wada weynaatay ee meelaha ninku cidlum u fadhiyo marka caynkaas ku dhacdo markay dhowr wixii gaaraanna bashan bay galaan inta aqal dhex fadhiyo lahayd kaale gobolka wax ku baratay ee ku soo koriyay ee abaal ku lahaa waxa looga baahay inay yimaadaan halkan oo ay ka qayb qaataan cisbitalka oo dhaqaatiirta daada yar ee imika aysan waayagnimo koriyaan farinta waxaan dirayaa dhammaan aqoonyahanka oo dhan Soomaaliland gaar ahaan dhaqaatiirta labada cisbitalkan iyo laascaanoodba waa labada dhaqaat cisbitaal maanta ugu casrisan ugu qalab wanaagsan ugu dhismo wanaagsan Soomaaliland oo dhan dhanka kale waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka qayb galay dufcadii afraad ee ka qalin jabisay jaamacadda Sanaag University waxa uu horreynba munaasabadaasi hadal ka qaatay mas'uuliyiinta jaamacadda Sanaag University wasiiradii ku wehelinaya safarka madaxweynaha iyo marti sharaftii ku sugnayd munaasabadani adiga waftigaaba waa idinka mahadnaqaynaa imaanti kale aan loo timaadeen nagala soo qayb gasheen xafladan aanu ku soo dhaweynayno uguna mahadnaqayno ardaydii baajka afraad ee ka qalin jabisay jaamacaddan Sanaag dhibaatadaas oo dhan waxa weeye way ka jirtaa jaamacaddu wixii aad jaamacaddaas aad nagala qaban karto waxaan doonaynaa inaad noogu dhawaaqi doonto markay khudbadaada aad dhamayso cilmiga barateen waxaad u barateen inaad ummadiina ku anfacdaan marka waxaan leeyahay cilmiga barateen guryaha la fadhiisanina meel cidlaha la fadhiisanina lacagna ha ku doonina
ummadda ugu adeega boqol shucuurtayada iyo motivationkayagana run ahaantii lama qiyaasi karo haddaan nahay ardayda iyo haddaan nahay maxaan qoraa waxaad ku soo beegmaysaan sannaday gobolka Sanaag oo kaliya ay dhex yaalaan 330 kaalimood oo barnaamijka shaqo qaran barnaamijka shaqo qaran ma aha mid muruqa dhalinyarada la dhisayo ama ciidan loo diyaarinayna noqdaan waa mid Sanaag maanta inay tusaale fiican u noqonayaan Somaliland sida loogu bushaareeyna oo mudane maxaan ku sharmarka geelle oo sheegayna runtii ay noqdeen dad ayaankoodii iyo nasiibkoodii himladoodii fiicnayd ay maanta noqotay in madaxweyne nasiib gabagabadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka sheegay munaasabadani waxyaabaha uu doonayo inuu u qabto muddada uu xilka joogo jaamacadda Sanaag University taasoo hambari halkan wax badan baa sheegteen baraartii waan sheegay waan yar faqray odayga jaamacadda war maxaa u daran wuxuu 3 class oo waxbarasho hadda maanta waa la bilaabaa oo gori 3 sharci baa ku xidhaa waxa wixii dawladdu dhisay qandaraas lagu bixiyo ay soo marto oo loo tartamo taana xalay waxay qandaraas waxa ma naqaanayno managa waxa bahayna qandaraaska waxa qaadaya maamulka halkan jooga barasaabka iyo meeyarka iyo diinku inta halkan dhismaha wax ka qabato kuwa ugu wanaagsan ee tayadooda soo maray oo soo xalaaleeyo qandaraas noqotay aroorta qandaraaska la bixiyo macallimiintu waxay ka cawdeen meel ay fadhiistaan ma hayno معلك رواية شرط الله إنه يقيم هذا المرة هرتا حفيزك بريزنت كمحكمة جامعة حفيزك سوق روح بدن هي قلب كيسين هالكادك عدنان عبد الرشيد على تلفزيون كعالم جالس سوالف تي في Cerigabo